cadaymo adag oo xaqiijinaya in Ten Hag laga ceerin doono shaqada Man United haddaba waa maxay cadaymahaasi waa warbixinteena maanta ee soo dhow daawade laagsaar muuqaalka siina sheer kare Sky Sport ayaa soo wariyay in xidigo badan oo Manchester United aysan hadda aaminsanayn awoodda tababaraha reer Holland ee Erik ten Hag inuu hogaaminayo Ridley Faris kadib natiijooyinkii xumaa ee xilciyaareedkan. Man United ayaa si weyn u dhibaatoonaysa xilciyaareedkan iyaga oo ku jira kaalinta toddobaad ee kala sareynta horyaalka Premier League iyagoo sidoo kale wajahaya kooxda kubadda cagta Chelsea. Shabakada ayaa tilmaamtay in Manchester United natiijooyinkii ugu dambeeyay ee xumaa ay ka dhigeen jawiga qolka lebiska mid aan caafimaad qabin iyadoo hadda in ka badan kala bar kooxda United aysan aaminsaneen tababarahooda Erik ten Hag. Shabakada ayaa sharaxday in tababaraha reer Holland uu luminayo taageerada ciyaartoyda marka laga soo tago natiijooyinka xun ee la gaaray. Waxaa sidoo kale jirta in xidigaha kooxdu aysan ku qanacsaneen qaabka ay u ciyaarayaan waxaana ay dareemayaan in ay si adag u tababaranayaan oo ay u ordayaan. Sky Sport ayaa intaa ku dartay in ciyaartoyda waaweyn aysan hubin waxa ay kooxdu u tartamayso taasoo cadeyn u ah in uu Ten Hag waqti dhow lumin doono mustaqbalkiisa. Sidoo kale halyeyga naadiga Arsenal Paul Merson ayaa sheegay in tababaraha kooxda Manchester United ay macquul tahay in shaqada laga ceeriyo haddii kulamada soo socda ay kooxdu la ciyaareyso naadiyada kale Chelsea, Bournemouth iyo Bayern ay guuldarro kala kulanto kulamadaasi.